soo dhawaada meel walba joogtaan. Maanta taariikhdan waxaa ku soo qaadan doonaa taariikhda aktarka caanka ah ee Tiger Shroff. Intaynu u gudagelin, fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkana subscribe ee Hero Banty, kaasoo lagu soo saaray barta Nidwala Grandson Entertainment. sanadkii 2014 Hero Banty waxa uu ka helay jawaab celin aan wanaagsaneyn, laakiin waxa uu sameeyay guul ganacsi isaga oo kasbaday $12 milyan. waxqabadkiisii Shroff waxa uu helay bilad wanaagsan iyadoo dhaleeceyaasha ay ugu horeen amaaneen xirfadda qoobka ciyaarkiisa iyo kartida uu u leeyahay qoobka ciyaarka. Taran Adrash oo ka tirsan Bollywood ayaa ka mahad celiyay bandhigiisa isagoo leh Tiger waxa uu diiwaan geliyay saameynta dhowr taxane. Adrash waxa uu kaloo raaciyay markii ugu horeysay waxa uu muujiyay kalsooni aad u sareysa. Si kastaba ha noqotee, intaa waxaa sii dheer Anupam Jamra oo xusay in uu leeyahay tayo aad u wanaagsan. Sawir gacmeedka Shroff waxa uu keenay abaalmarinta shaashadda ugu wanaagsan ee ragga ee abaalmarinta TIFA iyo abaalmarinta xiddiga ugu horeeya ee sanadka. sanadkii 2016 Tiger Shroff wuxuu dib ula midoobay Nidwala iyo Sabir Khan oo ku jiray filimkii Baaki. filimkan oo ay wada jilayeen Shraddha Kapoor iyo Seda Babu ayaa cadeeyay inay tahay guul muhiim ah oo ganacsi marka loo eego wadarta guud ee adduunka oo dhan $127 karoor oo u dhiganta $18 milyan. sanadkii 2018 Tiger Shroff waxa uu jelay Baaghi 2 walow ay sheeko kala duwan qaadatay, haddana waxa uu lahaa laba isbedel oo cusub. Ahmed Khan oo ah maamulihii bedelay Sabir Khan iyo Disha oo ahayd haweeneydii bedeshay Shraddha Kapoor. waxaa soo saaray mar labaad Nidwala Grandson Entertainment. bandhigiisa iyo talaabooyinkiisa ayaa la amaanay. filimku wuxuu u soo ifbaxay mid ka mid ah filimada ugu waaweyn ee Bollywoodka sanadkii 2018 isagoo soo xareeyay $37 milyan. Tiger Shroff ayaa markan ka soo muuqday filimka Student of the Year 2 ee isla sanadka 2019. waxaa soo saaray Karan Johar oo hoos imaanaya Badshah Drama Production. waxay ahayd taxanaha Student of the Year oo la jelay 2012. waa filim Hindi ah oo soo baxay 2019 oo jilayay Siddharth Anand. waxaa soo saaray Aditya Chopra isagoo adeegsanaya Yash Raj Films, waxaana jilayay Hrithik Roshan iyo Tiger Shroff. waxayna ka sheekeynayaan sheeko askari Hindi ah oo loo xil saaray in uu cirib tiro taliyaashiisii hore ee xumaaday. sawir gacmeed waxa uu bilowday isbuucii labaad ee Sebtembar 2018 waxa uuna soo gabagaboobay Maarso 2019. filimka waxaa masraxa laga sii daayay gudaha Hindiya 2 Oktoobar 2019 munaasabadii Gandhi. filimku waxa uu helay dib u eegis aad iyo aad u wanaagsan inta badan dhaleeceyaasha iyadoo lagu amaanay bandhiga Tiger Shroff iyo Hrithik Roshan. filimka ayaa dhigay rikoor maalintii ugu sareysay furitaanka filim Hindi ah oo gudaha Hindiya laga furo, isagoo wadar ahaan caalamka oo dhan ka soo xareeyay $450 karoor. waxaa soo baxday guul ganacsi iyo filimkii Hindiga ugu sareeyay sanadka 2019. taariikhdii koobnayd aynu ugu hadlaynay Tiger Shroff waana inta. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkana subscribe saar.